وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وحي من القصص التي دلت على الله الجليل. قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل. تالله ليس لها مثيل. وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل. وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل. وانساب مثل السلسبيل. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. haddii ilaahay yiraahdo waxaynu ka bilaabaynaa qisadii aabeen aadan calayhi salaatu wasalaam. qisada aabeen aadan markii qur-aanka ilaahay loo fiiriyo ilaa wuxuu ku soo aroray 9 suuradood magaciisa. 9 suuradood 2 suurad oo ka mid ah oo suuratu Aali Cimraan iyo suuratu Maa'ida magaciisa kaliya baa lagu sheegay. بينما سورة كله arrimo fara badan oo abuuristiisii ay ka mid tahay lagu falanqeynayo. haddaba 7 suurad ee soo hartay baan suurad walba dul istaagaynaa waxa ay ka hadlayso iyo qaabkay u soo bandhigayso iyo qaabka qisadii alle qisadii nabi aadam calayhi salaam ilaahay naga faaloonayo iyo dhinac wax naga tusinayo ayaan dul istaagaynaa. 7 suuradood 6 suuradood oo ka mid ah Maka ay ku soo degeen xilligii nabi Maka uu joogay. suurad kalena waxay ku soo aroortay waxay ku soo degtay Madiina xilligii nabi Madiina uu joogay. haddaba waxaanu ka bilaabaynaa suuradda Madiina ku soo degtay ee ah suuratul Baqara. suuratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu inooga warramay inuu u sheegay malaa'igta inuu dhulka u sameeyo khaliifo. khaliifana waxa weeye waa cid ilaahay ka wakiil ah oo sharci loo dhiibay leeyahay adduunkaas iyo dhulkaas iyo bini'aadankaas ku maamul. بينما adduunka kale nidaamkiisa uu ilaahay u hagaajiyay oo gacanta ku hayo. marka iyo malaa'igtii in ay ilaahay weydiiyeen xikmadda iyo xeelka dheer ee looga danleeyahay abuurista makhluuqaas. iyo ilaahay aadan inuu baray waxyaalaha adduunka jiro dhan makhluuqaadka jiro dhanba magacyadooda in la baray. iyo ilaahay inuu ku imtixaanay arrinka iyada ah malaa'igta oo la weydiiyay oo la yiri waxyaalahaas magacyadooda waa maxay oo markaas iyagii garan waayeen oo markaa iyada aabeen aadan calayhi salaatu wasalaam uu ka jawaabay oo halka uu ku guuleystay. taasoo halkaas oo laga qaadanayo aabeen aadan calayhi salaatu wasalaam wixii malaa'igta uu uga fadli badnaaday oo qiimo badnaaday ma ahan cibaado fara badan ee waa cilmi. iyo inuu ilaahay ku amray malaa'igta inay u sujuudaan aabeen aadan sujuudaas oo sujuud takriim maamuusid iyo sharfid iyadoo ay tahay. malaa'igta dhan baa sujuuday waxaa sujuudaas diiday oo ku gacan sayray ibliis baa diiday. intaa kadib alle hooyadan Xaawo iyo aabeen aadan wuxuu u dejiyay jannada wuxuuna ka reebay hal geed inaysan u dhawaanin wixii geedka ka soo harayna in loo baneeyay oo ay cunaan oo ay ku raaxaystaan. alle wuxuu aabeen aadan iyo hooyadan Xaawo uga digay cadaawada shaydaan. cadaawada shaydaan noo hayo baa loo cadeeyay. iyo shaydaankii in uu ku guuleystay in hooyadan iyo aabaheen dabinkii uu dhacay shirqoolkii uu degay inay ku dhaceen. iyo oo ahayd inay geedkii cuneen taasoo ay ka dhalatay marka in dhammaantoodba samada laga soo dejiyo dhulka la wada keeno. haddaba suuradda iyada waxaynu ka qaadanaynaa ama qaabkay u soo aroortay waxa weeye in bini'aadanka la xasuusinayo nimcada alle. iyo iyadoo dhinac socoto in la yaaban yahay bini'aadankaas wanaagga loo galay sida ilaahay uu kufrinayo oo uu gacan sayrayo oo nimcooyinkiisa dhanba uusan u danaynayn. suuratul Baqara marka dhowrka arrimood bay ku dul wareeganayaan aayadihii.
سورة اللباد وحاوي وسورة الأعراف وي سورة الأعراف آياتها مركز نصر إنه الرمى جود بيك هالليان وحكوكا إلهي إنه ملائكتك أمري إن آدم سجودان إيه ملائكة أمرك إني قاتين إبليس إنه ديري إيه مخالفة إيه عصيانك وسميين إنه التبرير إيه مرمسي وسمي أولياء أنيجا أي آدم كفضل بدن مركز عليها أي إلهي جنة كسر عيري إبليس قال لماذا أولي مدأويد iyo kibirkii isla weyniga ku jiro awgeed iyo inuu dalbaday in loo kaadiyo ilaa laga gaaro qiyaamaha oo ilaahay uu bariyay uu leeyahay ilaa qiyaamaha laga gaaro ii kaadi oo waxa uu qabanayana uu cadeeyo ahayd in ilma aadan uu baadiyaynayo dhammaantoodna uu naar u wada kaxaynayo halkaas waxyaalaha badan baa laga qaadanaya waxyaalaha waxaa ka mid ah qofka muslimka ah waxaa ogyahay ibliis inuu ahlu naar yahay oo naxariis ilaahay uusan marna helayn haddana isagoo naxariis ilaahay ka fogaaday buu ilaahay bariyay ducadii loo aqbalay taasoo macnaheedu yahay qof yahow muslimka waxaa lagaa dooni inaad mar walba ilaahay intaad ku xirnaato aad ilaahay gacmaha u hoosato iyo inuu ballan ku qaaday markii ilma aadan inuu baadiyaynayo naarna u kaxaynayo shaydaan hooyadeen xaawo iyo aabaheen buu imaaday wuu waswaasiyey waswaasintuna waxaa weeye in qof arrin fool xun loo qurxiyo qalbigiisana lagu soo rido marka uu aad buu waswaasiyey kadibna magac ilaahay buu ugu dhaartay oo qaasamahuma innii lakumaa la min annaasixiin buu yidhi kadibna geedkiiba ay cuneen waxaa soo muuqatay cawradoodii ay markii hore u arki jirin marka iyada ay geedihii jannada ku yaalay caleemahooda soo fujiseen soo goosteen iyagoo isku dhajinayo oo isku asturayo oona xishood uu u geynayo yaxyax oo macnaheedu yahay nolosha maanta markaynu fiirino waxaynu aragnaa dad fara badan oo iska qaqaawan aan asturnayn ama ha ahaadaan kuwa gaala ama ha ahaadaan kuwa muslimiin oo magaca islaamnimo sheeganayo oo haddana aan asturnayn asturnaantaas iyo qaawanaantaas waxay calaamad u tahay qofka isaga taqwadiisa iyo ilaahay ka cabsigiisa in ay aad u yar tahay inuusan ilaahayna ka xishoonin bay calaamad u tahay waxay kale calaamad u tahay qofkaas in lagu soo koriyay lagu soo barbaariyay la soo quudiyay xoolo xaaraan ah arrimahaas oo dhan baa qaawanaanta iyada laga qaadanaya halkii iyada markay arrinkii sameeyeen ilaahay baa canaantay markii iyada ahayd khaladkoodii iyo gefkii ay sameeyeen bay qirteen ilaahay bay u toobad keeneen ilaahayna toobadii waa ka aqbalay kadibna dhulka ayaa loo soo dejiyay iyagii ibliis si ay arladaas ugu dulnoolaadaan siraac hardanna uu halkaa ka bilowdo siraacaas oo u dhexeeyo xaqa iyo baadilka haddaba suuradan suuratul acraaf waxay ku dul wareegaysa waxaa weeye in la tusiyo cadaawadda uu ibliis u hayo aabaheen aadan iyo awlaadiisaba waxaan markaa suurada kale ku xigtana waxaa weeye suuratu loo yaqaan suuratul xijri ilaahay wuxuu inoogu sheegay aabaheen in aadan inuu ka abuuray dhoobo qallashay oo haddana isbedeshay midabkeeda isugu dheedaba jinnigana in la abuuray isaga hortiis dab kululna laga abuuray inuu ilaahay amray malaa'igta inay u sujuudaan aadan iyo in ibliis uu diiday iyo in lacnada ilaahay ay ibliis ku dhacday ilaa qiyaamu saaco laga gaaro halka waxaa kaloo ibliis uu sheegay adoomada ilaahay gaarka ah ilaahay ku xiran mukhlisiinta marna inuusan wax awood u ku baadeeyo inuu marna haynin ayuu halkaa sheegay waxaa kaloo halkaa ku cad inuu ilaahay ballan qaaday adoomadiisa wanaagsan inuu xifdin doono ilaalin doono sharqoolka iyo balaayada ibliis u dagayna inuu ilaahay ka badbaadin doono iyo inuu ilaahay naarta ku guri doono naarta ku waarin doono dhammaan inta ibliis raacday ee gaalada iyo kuwa kaleba haddaba suuradaas waxaynu ka qaadanaynaa oo inaloogu sheegay dad inay jiraan ibliis sharqoolkiisa ka badbaadaya oo macnaheedu yahay dadka iyaga ah saad oga mid noqon lahaydeen falkeeda gar ina leeyahay suurada kale ee ku xigta waxaa weeye suuratul israa ilaahay wuxuu inoogu sheegay in malaa'igta aadam ay u sujuudeen ibliisna uu diiday ibliis inuu
ku dhaartay oo uu ballan ku galay ilmo aadan in uu baadiyeyn doono taasna oo macnaheedu yahay in ibliis lagu salladi doono dadka bini'aadanka ah iyagoo bini'aadanka lagu imtixaanayo ma ibliis bay isku dhiibi doonaan mise intay ka hoos baxaan bay alle addoomo u ahaan doonaan iyadoo lagu fiirinayo suuradda waxaa kaloo lagu soo bandhigay qaababka uu shaydaan bini'aadanka uu baadiyeeyo xagga awlaadu ka soo gali xagga wuxuu ka soo gali caruurtii uu ka soo gali waxyaalo fara badan wasaaishaasna alle ilaahay waa inoogu sheegay halka wuxuu ilaahay kale inoogu sheegay suuradda iyada inay jiraan addoomo wanaagsan oo saalixiin ilaahay ku xiran oo shaydaan uusan duusan karin suuradda Israa markii la fiiriyo gaar ahaan qisadii nabi aadan markii la fiiriyo waxay ku dul wareegsanaysaa in bini'aadanka la imtixaanayo laguna imtixaanayo ibliis may raaci doonaan mise way ka go'i doonaan qisada nabiyullaahi aadam waxaa kale ku soo aroortay suuradda loo yaqaan suuratul kahfi suuratul kahfi ilaahay wuxuu inoogu sheegay ibliis in faraciisu inoogu sheegay inay yihiin jinniga iyo inuu ilaahay ka digay bini'aadankana uga digay inay ibliis u dhaganuglaadaan ka tala qaataan qorshooyinku u dejiyeyna inay aqbalaan allihii weynaana inay ku gacan sayraan oo wanaagyaalkii u galeen ay ku kufriyaan oo ibliis ay ka doorsadaan buu ilaahay suuraddaasna nooga digay suuratu daaha wuxuu ilaahay noogu sheegay ballan in aadan lala galay ballankaasoo ah inuusan geedkaas uusan cunin iyo aabbahan aadan dardaarankii iyo ballankii lala galay inuu ilaaway uu iskaga tegay uu go'aan jilicsanaaday buu ilaahay aayaddan noogu caddeeyey iyo ibliis in aabbahan iyo hooyadan uu u sheegay geedka hadday cunaan laba arrimood inay ka helayaan kow waa in ay waari doonaan weligood aysan dhimanayn iyo labo in boqortooyo ay helayaan boqortooyo iyo dhaqaale hanti inay helayaan qaabkaas buu ugu fasiray oo uu ugu caddeeyey oo ugu sababeeyey hadday cunaan inay helayaan labadaas arrimood oo ibliis uu hooyadan iyo aabbahan oo shaqoolka ugu degay waa labada arrimood uu nabigana calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay uu leeyahay waxaa la gaari doonaa xilli cadowga iyo gaalada dhanba ay soo bahaystaan oo idinku goobtaan isugu kiin wada tagaan markaas saxaabadu waxay weydiiyeen nabi allow xilliga iyada miyaan tee yarnahay tiradeena miyaa yar markaasuu nabiga wuxuu yidhi maya waad fara badan tihiin buu yidhi laakiin waxaa idin heli doono waxaa la yidhahdaa wahnigan waxaa weeye xubu dunya wa karaahiyatul mowt waa labada arrimood oo aabbaheen iyo hooyadan xaawo oo shaydaanka ku sharqoolo wey xubu dunya waa inuu qofka hantiino helo boqortooyo adduunya jacayl iyo in geerida naco oo ah inuu bini'aadanka jecel inuu iska waaro waa labadii hore lagu soo dagay wey haddana uu nabiga nooga digay calayhi salaatu wasalaam qisada u dambayso waxay ku soo aroortay suuratu saad bay ku soo aroortay aayadaha bilowgoodana waxay caddaynayaan oo ay tilmaamayaan qisadan in loo keenay inay calaamad u tahay qur-aankan inuu xag alle ka yimid nebi maxamedna inuu yahay nebiga alle uu soo dirsaday hadduusan nebi alle ahayn waxa lagu soo dejiyana uusan qur-aan ahayn siduu ku ogaaday waxyaalaha samaawaadka iyo xagga kore ka dhacay siduu ku ogaaday oo macnaheedu yahay waa nebi loo waxyooday oo la doonayo xaqa iyo wanaagaas in laga qaato marka toddobadaas suuradood dhowrka mawaadiic bay ku dul wareegayaan iyadoo sharax ay faahfaahin badan usii baahnayd haddana intaas yar baan kusoo koobaynaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu